إن الله وإنا إليه راجعون runtii maanta abaaro 9 daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan tirada inta dhimatay hadda la haayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeenin ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaataysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo هذا ما زلت. gaariga qarxay hadda gaariga waxa sheegtay in wax lagu soo dajiyay yalla gaariga runtii gaariga ilaa hadda qofka lahaa lama cadeenin baaritaan ayaa socda sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dajiyana waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta wax ka dhacay dhulkii waxba ma uusan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxa caado ah in markii uu qarxo dhulkii wax gaaro saameyntiisuna intaan uu ka sii balaarto marka saameyntu uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeedeen waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha ammaanka waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dajiyay aad oo ma santii mas'uuliyiin dowladda ka tirsan oo geeriyooday ma jirto ilaa waa idin sheegay khasaaraha inta dhimatay waa 3 qofood inta dhaawacana waa ilaa 6 qofood